مشرح مدحوينه ku-xigeen galmudug xasan maxamed saciid samatar gacali oo kamid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa casho sharaf u sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Caabudwaaq waxaana munaasabada casho sharaftan ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada ururada dhalinyarada haweenka odayaasha guurtiga iyo bahda waxbarashada ee degmada qaybihii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadan waxay si isku mid ah dhamaantood taageero ugu muujiyeen musharaxan waxaan filayaa xildhibaanada galmudug inay yaqaanaan cidda galmudug samata bixin doonta waxaan rajaynayaa xasan gacali inuu yahay dadka galmudug maanta haddii lagu aamino 4 sano kadib la arki doono galmudug cusub oo dhalinyaradeeda iyo haweenkeeda iyo dhaqankeeda wadata oo isku mid ah koobka inaad qaadaan ku rajaynaynaa madaxweyne ku-xigeenkii galmudug inaad noqoto gacanta inaan ku qabanno adna gacanta naqawato reer galmudug haddaan nahay yaan rajaynaynaa inaad hawlkartahay aqoon sare inaad leedahay inta ay kugu qaadanayaan waa in horey ay kugu yaqaaneen maahan hadda in lagu abaabudayo aad baan ugu faraxsannahay aragtidaada inaad wax badan waddanka ka soo qabatayna la yaqaano taasaan kugu soo dhaweynaynaa waana ku garab taagannahay haddaan nahay galmudug calaamadda astaantaada ayaa nagu filan baan u malaynayaa labada farood oo taagan galmudug hasanaato weey ama Soomaaliya hasanaato aniga ku hadlay magacayga iyo magaca aqoonyahanada degmada Caabudwaaq oo ku soo dhaweynaynaa waxaan ku rajaynaynaa galmudug midaysan gudoomiye ku-xigeenka degmada Muhidiin Cabdi ayaa dhankiisa goobta ka hadlay xilku marka la raadinayo waa wax aad maaragtay qof kasta oo xil goobay uu wanaagsan yahay balse qofku markuu xilka gudaha u galo wuxuu ogaan karaa macnaha mas'uuliyadda saaran iyo waxyaabo badan oo maanta Soomaaliya u baahan tahay oo dhibaatooyin badan ka jira waxaan leenahay dhammaan intaasoo ilaahay kaasana ku bixiyo noqonkii maxaan ku yiraahdaa galmudug hogaamiye xasan maxamed saciid samatar gacaliye musharax madaxweyne ku-xigeen galmudug ayaa ugu dambeyntii uga mahadceliyay bulshada casho sharaftan ka soo qayb gashay waxa uu ku dheeraaday haddii uu ku guuleystay xilkan madaxweyne ku-xigeenka waxyaabuhu ka qabanaya galmudug taas oo kamid ah in dadka wax lagu raaco waxna looga haro wanaagga loogu raaco xumaanta looga haro marka caruurta waa muhiim sidaad ogsoontihiin gobolada galguduud iyo mudug ee ku midoobay dowlad goboleedka galmudug waxa ka socdo iyo waxa ragaadiyay kulligeena waad ka waraysaa marka looma baahno inaan faahfaahiyo iyo khudbadda halkaa ka jeediyo laakiin haddii ilaahay ii ogolaado inaan helo oo aan buuxiyo xilka madaxweyne ku-xigeenka galmudug waxaan idiin ballan qaadayaa in xaalka galmudug wax badan aan ka bedelo beelaha weli colaadaha ka dhex taaganna inaan walaalayo سعيد عبد محمد ورقة TV Universal عابدواق